wafdi uu hogaaminayo wasiirka takadaha iyo gaadiidka badda iyo weliba la dagaalanka burcadbadeedka Puntland Saciid Maxamed Raage ayaa booqday degmada Laasqoray ee gobolka Sanaag isagoo si gaar ah u booqday markaasi wadaha howlaha dardargelina dhinaca marsada magaalada Laasqoray oo uu ku saaminayo qaabkii loo sameyn lahaa marsad caalami oo ay dadka deegaanku ay si weyn ugu naaloonayeen ayaa halkaas waxa ku soo dhaweeyay maamulka shirkadda iyo weliba muwaadin reer Laasqoray oo isagu shirkadda madax ka isla markaana dadaal badan ugu jira si ay markaas ula jaan qaadaan bulshada inteeda kale wasiirka oo Home Cable ay weydiisay sababta xilligan safarkiisa ku soo aadsay ama booqashadiisa ku soo aadsay magaalada Laasqoray ayaa waxa uu sheegay arintaas tikada lafteeda inaan qayb ka qaato oo aan maadaama anigu deegaanka aan waladan hawsha wadarutii aan ka taageeri karo waxay kaloo yahay deegaanka laftiisa iyo booqashadiisa yahay muhiim ah waayo waa deegaan aan ka tirsanahay ama ku dhashay marka dhinaca bulshada inaan la kulmo odayaasha iyo dadka jooga iyo arintaas tikada sidii loo qaban lahaa ama soo noolaynta tikada Laasqoray waxay muhiim u tahay shacabka reer Soomaaliya oo dhan ma xitaa deegaanada laakiin Soomaaliya oo dhan tahay runtii anigu waxaan lahaa wixii community-ga horumarkooda qof kasta meesha doonay baa jiro inuu wax lagu farxo waxaan arrimaha lafteeda aan kala hadlay waxa kamid ah inaan la siyaasadayn wixii horumarinta deegaanka ay noqoto wax ka gaar ah waayo waxa dadka soo kordha waa dadka Soomaaliya iyadoo ay tahay in degmada Laasqoray deegaan qadiimi ah ayaasan ahayn markii ugu horeysay telefishinka Home Cable oo booqasho ku yimaado أحمد شام تلفزيون عالمي Home Cable Laasqoray.